السلام عليكم maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee loo noqdaa qof qudayasho mudan waxaan ku soo gudbinayaa dhowr qodob oo muhiim ah kow kaalmee dadka marka lagu baahan yahay shakhsiga lagu dayan karo waa midka kaalmeeya dadka oo garab taagan misana aanan iskala weynayn haddaba noqo mid kaalmeeya dadka oo ha noqdaan dadku kuwo kuu siman oo isku mid agtaada ka ah labo ixtiraam aragtida ama ra'yiga dadka kale markaad wada hadlaysaan dadka haddii aad si wacan u dhegaysataa ama aad u raaricisa dhegtaada hadalkiisa wuxuu dareemayaa inaad ixtiraam u hayso qofkaasi haddaba dadka markaad la sheekaysanaysa ama aad wada joogtaan meel dood lagu hayo yacni dood cilmiyeed ah hadalkaaga markaad dhammaysato dadka kale dhegayso oo ra'yigooda ka sug si aad u noqoto qof qudayasho mudan balse haddii aad tahay qof dadka kale ku qayliya ama aan qadarin ra'yigooda way kaa fogaanayaan oo ku nacayaan inay kugu daydaan iska daaya saddex umuujinta la talinta iyo toosinta markii qofku ugu yimaado la talin iyo toosin kaana dalbada inaad kala taliso shay ogow waa qofku aaminay oo raba inuu kaa helo talo waxtar leh oo noloshiisa wax ka beddesha haddaba dadka tala sii weliba sii mid toosan oo aan turunturo lahayn markaasi ayaad noqonaysaa qof lagu dayan karo afar runta markii ay dadku ku arkaan adigoo runta sheegaya oo ku dadaalaya waxay aaminayaan inaad tahay qof dhowrsan oo hagaagsan sababtoo ah qofku waxa gudihiisa ku jira ayuu badanaa afkiisa ku hadaaqaa haddaba middaas waxay muujinaysaa in qofkani yahay qof wanaagsan oo aanan beenlow ahayn markaasi ay bilaabayaan inay kugu daysadaan oo iska kaa dhigdhigaan shan ha aqbalin waxyaabaha la faafiyo markii ay ku tirikuteen meel ku badan tahay ha noqon qof rumaysa isagoon hubsan markaasi ay bulshadu kuu arkaysaa qof lagu daysan karo sababtoo ah wanaag ayay kugu arkaan ugu dambayn waxaan rajaynayaa haddaad si dhaba ugu dhaqanto qodobadaasi aan kuu soo sheegay inaad noqon doonto qof wanaagsan oona lagu daydo khayr badan ayaan kuu rajaynayaa